hay'adda Hafayoko ayaa waxay munaasabad ballaaran u qabatay mashruuc lagu taageerayo waxbarashada carruurta ay saameysay abaartu ay u saamixi weydeen inay ka qayb qaataan waxbarashada kala duwan ee deegaanadooda kaasoo ay hay'addu ka fulinayso gobolada kala duwan ee Sool, Sanaag iyo sidoo kale gobolka Togdheer. Mashruucan oo lagu magacaabo waxbarashada degdega ah ayaa waxa maalgelisay hay'adda UNICEF iyadoona ay fulinayso hay'addan caalamiga ah ee Hafayoko. Mashruucan ayaa waxa uu deegaanadani kala duwan ee goboladan ka socon doona muddo 3 bilood ah waxaana lagu caawin doonaa mashruucan carruurta abaartu saameysay fasalada koobaad inay helaan waxbarasho bilow ah. Mashruucani waxbarashada degdega ah waxa uu si toos ah uga socdaa 115 iskuul oo ku yaala gobolada Somaliland. Munaasabaddan hay'adda Hafayoko qabatay mashruucani ayaa waxa uu go'aantii faahfaahin ka bixiyay Mukhtaar Cismaan Jaamac Badri oo ah madaxa mashruucani. waxaanu joognaa oo ku sugannahay dugsiga hoose dhexe ee ayaan leh ee ku yaala degmada Caynaba ee gobolka Saraar. waxaanu u fadhinaa munaasabadda mashruuca magaciisa la yiraahdo Education in Emergency ee ay maalgelinayso hay'adda UNICEF. mashruucaasi oo loogu talagalay in wax lagaga qabto ama lagu taageero carruurta ay abaartu saameysay ee awoodi kari waayay inay waxbarashada isqoraan. mashruucan oo socon doona muddo 3 bilood ah waxa ay hay'adda Hafayoko ka fulinaysaa 50 dugsi oo ku yaala guud ahaan 3 gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Togdheer, iyadoo ay si toos ah uga faa'iideysanayaan arday gaaraysa 3250 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. ardaydaasi waxa la gaarsiinaya ama waxa la siinaya deeq lacageed oo dhan $243,750 waa guud ahaan 50 iskuul, iyadoo iskuul walba uu heli doono ama uu helayo lacag dhan $4,875 oo loogu talagalay in iskuul walba uu ku fariisiyo arday cusub oo ah ardayda ay abaartu saameysay oo tiradoodu gaarayso 65 arday ayaa la doonaya dugsi walba in lacagta ay hay'adda UNICEF ugu tala gashay ee 4,800 in lagu fariisiyo. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. mashruucii waxaanu bilownay bishii afraad baanu bilownay, waxa uu madaxa la galay 2 bilood. waxa xusid mudan in mashruucan uu yahay mashruucii koobaad ee noociisa ah ee dugsiyada ama ardayda lagu siinayo lacag toos ah ama waxaan la yiraahdo school grants oo ah mashruucii koobaad ee noociisa ah ee dugsiyada iyo ardayda soo gaara. waxa ku guuleystay oo hirgelisay markii ugu horeysay hay'adda UNICEF. mashruucan wuxuu ka shaqeynayaa ilaa iyo 115 dugsi oo ku yaala guud ahaan Somaliland. oo mashruuca intii ay hay'adda Hafayoko aanu fulinaynay nala shaqeeyay oo gacan weyn ka geystay fulintiisa gudoomiyayaasha gobolada aanu ka shaqeynayno oo mashruucu ka shaqeynayo wasaaradda waxbarashada heer qaran, heer gobol iyo heer degmo oo kaalin weyn ka qaadatay hirgelinta mashruucan. sidoo kale maamulayaasha iyo gudiyada dugsiyada oo iyaguna runtii qayb libaax la ka qaatay sidii uu barnaamijkan u hirgeli lahaa. marka laga yimaado qaaraanka ama dhaqaalaha yare lagu taageerayo iskuulada, waxa sidoo kale ay hay'adda ay wadaa oo aan iskuul walba gaarsiinay qalabkii waxbarashada ee ilmaha ama carruurta ay wax ku dhiganayeen, taasoo u saamaxaysa markaa in carruurtii ay ku dhiiradaan in waxbarashadii bilaabaan. geesta kale waxa halkaas hadallo kala duwan oo ay kaga waramayaan faa'iidada mashruucani ka soo jeeday maamulayaasha kala duwan ee dugsiyada magaalada Caynaba oo ka socda mashruucani. alxamdulillah. horta waxaanu shaqeynaynaa waxa weeyaan waa ubadkeeni oo la leeyahay mar haddii xoolii ka baxeen aan waxbarno waxbarashadiina gacantaan ugu haynaa waana noo fiyay alxamdulillah. waxa kale oo anaga noo fulay oo barnaamijkan noo fuliyay hawlo fara badan ayuu noo qabtay sida runtii baahiyo badan oo naga muuqday ayuu noo daboolay oo aanu qaarkood gacanta ku haynaa aragtaan. waxyaabo fara badan oo aan la soo koobi karayn ayuu anaga noo daboolay gaar ahaan dugsiga hoose dhexe ayaan leh. dadkan waxbarashada loo bilaabay waxay ahaayeen dadkii reer miyiga ahaa ee xoolihii ay markaa ama dhaafeen ama ka yaraadeen ee markaa magaalada daafaheeda soo degay. markii buuggii iyo qalinkii iyo bac yar loogu riday ay heleen nolol cusub bay bilaabeen. markaa waxa weeyaan aad iyo aad baan mashruucan waxtarkiisu u ballaaran yahay. waxaan odhan karaa waqtigii ku habboonaa ayuu yimid. dadkii qaxoontiga ahaa ee macna abaar u heleen xoolo ka baxeen ee magaalada ku soo hoyday iyo dadkii magaranaysaa silixsanaa ayaan awoodi karayn in ay magaranaysaa waxbarashada carruurta ku daraan intaba way ka faa'iideysteen. faa'iido badan bay ka heleen. ilaahay baa ku mahadle ciddii lacagtan iyo magaranaysaa mashruucan fulisayna waa ku mahadsan yihiin. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saraar waxaana uu hay'adda Hafayoko iyo sidoo kale hay'adda UNICEF uga mahadnaqay mashruucani waxbarashada degdega ah ee lagu taakulenayo ardayda ay saameysay abaartu. isagoona sidoo kale tilmaamay in mashruucan yahay mid ku soo beegmay waqtigiisii. waxbarashadii abaar baa saameysay iskuuladii tiradoodii tayadoodii
waxoodiba hoos bay u dhacday iminka markii abaartii laga soo doogayna dee waxa weeyaan dhibaatooyinkii ay ka tagtay ayaa yiilay sida runtii waxaan odhan karaa mashruucani wuxuu inoo yimi xilli ay ku habboon tahay xilliga ugu habboonayd oo ahayd in laga dhaydo ama laga soo kabto abaartii in lagaga soo kabto ardaydii markii mashruucaasi yimi arday fara badan oo aan iskuuladaba timaadeen oo markii hore ama awood lagu qoro ama meel la fadhiisiyo ama haddii la leeyahay buug aan haysan oo qalin haysan oo aan haray aan yimaadeen baa mashruucani markuu yimi soo xirooday sida runtii ah iskuuladii mashruucani uu ka fulay aad bay uga muuqdeen iskuuladii kale oo uga murbaxay markaa sida runtii ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa cid kasta oo mashruucan lug ku lahayd hay'adda Hafayoko UNICEF isku soo wada xoriyo mashruucani waxbarashada degdega ah hay'adda Hafayoko ay ka wado deegaanadani kala duwan ayaa mid waxtar weyn u leh bulshada iyo sidoo kale ardayda wax baranaysa waa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Aynabo